Marayaha dekada magaalada Berbera Engineer Cali Cumar Maxamed Xorxor ayaa maanta ka warbixiyay dhismaha wajigii saddexaad ee barxadda cusub ee dekada magaalada Berbera lagu kordhin doono taasoo qaybaheedii hore ay dhamaadeen isla markaana madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu laba qaybood oo kamid ah hore xariga uga jaray dhagax dhiga ama bilowga qaybtan saddexaad ee dekada ee barxadda dekada magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Saaxil maayarka degmada Berbera iyo waliba marayaha hamaha shidaalka ee magaalada Berbera ugu horreyn waxa ka warbixiyay bilowga dhismaha barxadda cusub ee dekada Berbera marayaha dekada Berbera Engineer Cali Cumar Maxamed Xorxor ما شاء الله horta maanta waxa insha Allah ta'ala ومالتي ugu horeysay qaybida dambe dekada aynu bilowno hadii la yiraahdo qaybi hore aan sameynay waxaan malaynayaa isha macalina wala arki doona faanumayno laakiin shacabka waxaan u sheegaynaa in loo shaqeynayo dhalinyarada waxaan u sheegaynaa inaan u shaqeynayno hadii la yiraahdo mustaqbalkooda dawladdu waxa ay madaxweynuhu halkan maalin nagu maray qaybta dambe waa kii furay safarkiisii bariga ugu dambeeyay imikana waxaan doonaynaa inaan bilowno halkan madaxdii gobolka oo dhan baa ku dhan nin lagama maqna wala wada joogaa marka waxaan doonaynaa waxaan bilaabaynaa haddii la yiraahdo doorkan qaybihii dambe dekada oo leeg inta imika dhisan in leeg insha Allah ta'ala inta imika dhisan hadaan dib ugu noqdo waxaan ku sameeyay Augustedii ayaa ahayd maalintii aan bilaabayna xarxaarayni yaa imikana hadaan sheego inta container ku degtay ilaa cadad wala xisaab yaa labada markaba ugu waaweyn containeradooda waa kuwa halka ay ka muuqda shaashada dawadayda waxa weeyaan waa bill iyo MSC oo containerada ugu badan keena halkaas aan dhignaa halkaas dadku kala baxaa qabiir haddii ku jirto wax dhamaanaya weeyaan oo xafiisadii waxaas weynoo harsan yihiin iyo inaan qurxino dhir iyo xaas ka beero iyo caws iyo flower laakiin runtii hawsha inteedii badnayd wata la isticmaalaya way dhan tahay hadaan specify gareeyana waxa weeyaan waa very strong specification oo waxa weeyaan farsamo ahaan way adag tahay oo culayska meesha maraya iyo ka mustaqbalka mari doonaba way qaadaysaa hadii la yiraahdo waxaan halkan ugu mahadnaqayaa number 1 shaqaalihii iyo murqumaalkii ka shaqeeyay hawshan hore dhamaatay waxaan leeyahay waa baasha hambaliyo anagu hadaan de si raafi jiray hadii aynu isguwaabi jirayba yaa shaqada waa taa dhamaatay sidoo kale mas'uuliyiinta kale halkaasi ka hadlay sida maayarka degmada Berbera gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo marayaha hamaha shidaalka ee Berbera ayaa ku bogaadiyay marayaha dekada Berbera dhismaha barxaddan cusub ee qayb ka midna dhamaatay qaybihii kalena hadda la bilaabayo marka hore Ilaahay baa mahad leh marka labaad waxaan runtii aad ugu hambaleynayaa ku dhiirinayaa marayaha dekada horumarka ballaaran indhuhu ay arkayaan aan caadku ku duuneyn wado waan ku hambaleynayaa waxaan leeyahay waxa ka haray adiga digii qarankan jiraba iyo dawladda waqtigan jirtaba qofku maalmuhu joogo wixii ka haran weey aan jecelahay hal qodob inuu ka faa'iideysto halka qodob waxa weey in badanna waan ka hadlaa horumarka mas'uul kasta oo xil u haya ummadda qaranka u haya waxa ummadda uu dhigay budhiga oo aan ba ka haro taariikhu gala dadkeenu waxay u badan yihiin nooc doonaha hada masku doonaha iyo meesha doonaha ka soo jeeday wuxuu u badan yahay wuxuu ku qiimeeyaa hadba mas'uulku wuxuu qofkaas shacabka ah siiyo ee wax taro waxaan leeyahay bisadu marka horena ee gaajoonaysan way ciyaarsaa ma way taada marka dhargeysiyaad hilibgeel iyo laasisana ay ka tirsan ma way taada waxa aan ma waranayno waxa umada u dhigtay ka haroon cala waxa ka haraya aniga iga haraya mas'uuliyiinta ka haraya qaranka ka haraya waxaan umada u qabano cid kasta oo shacabka Soomaaliland waxa la doonayaa cid wax u qabanaysa in mar walba soo dhaweeyaan oo aanay mowda dhageysan assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh ku hambalyeynayna ilaa horta waxaan weydiinaynaa inuu dhamaystir wanaagsan insha Allah oo inoogu sameeyo dhammaystiran dekadu oo wax qabad aad iyo aad u ballaaran intii qabsoontay
mas-uulka gacanta ku haya waxay u tahay ajri buu ka helayaa xagga aakhirada markaad eegto markuu dee qofku shaqada hagaajiyo xaajiga waxa kaloo dee meeyarku waa kii waa la mawleynaya bisada hadda ma tiraya wuxuu mas-uuliyiinta kale sii dheeriyay taakulaynta iyo gacantoo taana waa barakada meesha ha ka jarin oo ama bisada ha mawleysa ama yey mawleynayna dadku haddii ay wax heli waayaan barakada ka duulaysa sibirka iyo jaajuurkaba marka iyadana in la wada helo oo dadkana aynu wax siinaa laakiin raadka inaga hadhaya ninkii baahan ee maanta wax qaataa dee wax qaaday iyo cidina moogo wax qaaday laakiin raadka hadhaya ee xaajacal lagu xasuusanaya waa dekedan sida la wada og yahay dhismaha qaybtan barxadan cusub ee dekada magaalada berbere lagu kordhiyay ayaa waxa inteeda badan si tabarucaad ah ku dhisay shaqaalaha kala duwan ee dekada magaalada berbera oo iyagu hore saacado kala duwan uga howlgali jiray dhismaha goobta tan maxamed cabdilaahi soo fadhiiste Somali Cable TV magaalada berbera.